aad garateen in maanta dalkan loo sameeyo maktabad ay ka faa'iideystaan ummadda halkan degan iyo kuwa kale iman karaya labaduba. Waxa aad la yaab u leh runtii oo hambalyo wanaagsan ah in dareenku uu ina siinayo ku saabsan dhalinyaro inay maanta ka fakarayso in ay abuurto maktabado dalka wax laga bedelayo. meelo yaryaroo runtii la yaab u leh oo aanan kaba filaynin ayaan sidan oo kale arkay dhalinyaro aad u yaryar waliba laga yaabo qolihiin inay jaamacada iyo dhigataan baa suurtagal ah kuwa xataa dugsiyada dhexe dhigta oo maanta ku fakaraya inay golo akhris ama meel wax lagu akhriyo runtii ay abuuraan runtii taladeeda hayo waliba meel wanaagsan gaarsiiyay meel kale halka waliba ka duwan aan kaba filaynin baa runtii waa waxyaabaha waxaan u maleynayaa mucjisaadka inagu soo socda ayay ka mid ahaanaysaa inaynu aragno dhalinyaradii oo ka fakaraysa maktabooyinka waaweyn. garasho la'aan baa jirta, dareen siyaasadeed oo carruurteedii ayaan u bislayn baa jira, aqoontoodii oo aan sidii loogu talagalay ahayn baa jirta. hawl badan baa marka u taalla dhalinyarada maanta si wax looga bedeli lahaa. waxaan filayaa maktabadu inay tahay shayga koowaad ee loo filaya in maanta waxyaabaha qaar ay wax ka bedelaan. waxa ka mid ah arrimaha maanta duulaanka ku ah maktabadaha, arrimaha social media ayaa ka mid ah, telefoonada ayaa ka mid ah runtii oo laga yaabo inay yar tahay in aad aragto ummad meel wada fadhida oo laga yaabo in ay ama isdhagaysanayaan ama isaga waxaan ahayn ay ku mashquulsan yihiin. waa waxyaabaha inagu soo socda ee aad moodo jiilalkan soo socda in ay wax ka bedeli doonaan noloshooda oo loo baahan yahay in ay maskaxdooda si caafimaad qabta uga fakaraan oo wax ku daraan oo ay wax ku soo kordhiyaan ee aanay ahayn wax uun ama ummad kala tiri ama wax uun loogu talagalay kelmadaha aynu entertainment waxyaabaha uun waqti luminta loogu talagalay inay ku mashquulaan dhalinyarada maanta ay u badan tahay. waxaad ku sii dartaa kuwa maanta dalalka ama kharibaya ama isgubaya ama dal ummadaha qarxinaya ama dhibaatooyinka badan ummadaha u geysanaya ayaa la mid ah. waxa idin yaalla hawlo runtii aad iyo aad u badan oo la rabo in wax laga bedelo. shayga saddexaad aan isleeyahay waa u malaynaya in wax laga bedelo. waxaan filayaa aqoontii dhalinyarada hoos u dhacday heerkii laga filayay ka hooseeya. jaamacadihii iyo markii aan tagno professorka iyo professorada halka fadhiya iyo waxay og yihiin oo la hubaa in ayaan dhalinyaradu maanta aqoontii laga filayay meeshii la joogtay laga rabay inayan joogin ee ka hooseeyaan. jaamacadaheenni baan tagnay, kuwii shahaadooyinka waaweyn hayay baanu tagnay, kuwii kale aan eegnay waan aragnay marka inay waxoogaa bisayl noocaasi inuusan jirin. meeshii ay wax aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin qoladii soo qaaday. tusaale yar baan sheeko yar baa idinka sheekaynaya oo aan is leeyahay waa runtii dareen bay idiin samaynaysaa. timeka labaad ee aynu eegnay 10kii baynu ballannay. dhalinyaradii dalkana waa tihiin, isbeddel inaad samaysaanna waa rabtaan. 11kii iyo wax ka dambeeya aynu bilownay shirkada oo waliba intiina badani iminka inta badani ay maqnaydba. sidee baad u fasiri doontaan marka dalkan inaad wax ka beddeshaan idinkoo markaad saacad ballantaan aad 2 saacadood kadib imanaysaan? sidee baad rabtaa inaad u samaysaan? waa dhaqamada kale ayna haysta ayay ka mid tahay. waxyaabaha kale ee la rabo aan u arkaya inay muhiim tahay waxa weeye maaha inaynu waqtigii keliya aynu ballannay aynaan isu imanaynin. waxaa aad u yaraanaysa waqtigii xataa aynu wax qabanaynay baa yar. jaamacadaheenna iyo iskuuladeenna inta badan meeshaan soo aragnay waqtigii loo baahnaa waqti ka yar baa wax la bartaa inta badan. waana cidda mas-uulka ka ahi waa dhallinyarada. laakiin marka aad ka dhammaysato meeshii aad ka qaaday baad dhigaysaa. buuggani waa la soo qoray, adigu keligaa ma akhrisanaysid. ardayga kaa dambeeya kuwa kaa horreeyana way akhristeen, kuwa kaa dambeeyana way akhrisan doonaan. waxaa la rabaa buuggaasi markaad dhammaysato meeshii aad ka qaadayna dhig, sidii u ahaana u dah. miiska laftiisa saasoo isticmaalaysa. kelmad bay isticmaalaan marka. kelmadda waxaa loo leeyahay please nice to eat. ereyga ingiriis haddaad isticmaasho waxa weeyaan please nice to eat waxa weeye ma aha keliya sidaa u dah. waxa weeyaan
u naxariiso qalinka iyo buugga iyo miiskaas sidii ay ahaayeen ma aha uga roono weeye u roono maktabadiinu marka waa inay informationka noocaas xambaarsan tahay